Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Isku soo noqdo wanaagsan saaxiibayaal. Waa mar kale iyo buuggii la magac baxay sooyaalka isirka iyo abtirka Soomaalida uu qoray Professor Maxamed Cabdi Maxamed Gaandi Allah u raxmado oo idiin akhrinaya saaxiibkan xirsi qaybtii 16aad. qaybta 16aad waxaan kaga hadli doonaa jareerta reer Shabeelle oo loo kala baxshay saddex kunle, shiidle, saddexda badbeedaan, duubo, jiidle iyo kaboole. Wuxuu leeyahay jareerta inta badan ama kulligoodba jareerta reer Shabeelle waxay isugu lifaaqan yihiin ama ku mataanaysan yihiin tinjilaac. Markay is qaybinayaanna waxay isugu yeeraan bilis oo loo yaqaano tinjilaac ama baare oo loo yaqaano tinjareer. saddex kunle wuxuu leeyahay haddaan u fiirsano jareerta Shabeelle abtirkeeda waxaan arkaynaa markii laga reebo shiidle, duubo, jiidle iyo kaboole inta soo hartay waxa ay u qaybsamaan kunle iyo badbeedaan waana labada qaybood ee ajuuraanku u qaybsamo. Macnuhu waxaa weeye sidaas ayay boqortooyadii ajuuraan u kala raacsanaayeen. Magacii saaranaa sidii ayay u wataan. Kunle waxaa ku lifaaqan gareen, badbeedaanna moholaan. Okay. Waa erey guud oo buugga tafsiir naga siinaya qeybaha iyo jareertu kala baxaan. Waxaan geli doonaa oo buug sii qeybiyey qolaha la dhaho saddexda badbeedaan. Saddexda badbeedaan buuggan wuxuu u kala baxshay Dagiino, reer Geebow iyo Cali Mahad. Dagiino wuxuu u kala baxshay reer Buulow iyo Sabow iyo Bahabar. Reer Birxeedna wuxuu u kala baxshay reer Wadataal oo Dhibow iyo Caanood iyo Cumar iyo Bilisow iyo Iidow u kala baxo. Reer Mooriye ayagana waxay u kala baxaan reer Aade iyo Baarkuusow iyo Mundulabi iyo Bahduuley. Guryaante isna wuxuu u kala baxaa Gube iyo Jir. Jirna wuxuu u kala baxaa saddex oo reer Colow, reer Faayow iyo Gaalamo qole la yiraahdo. Reer Geedow buug wuxuu u kala baxshay reer Aarow iyo Caadiye. Reer Aarow ayagana wuxuu u kala baxshay reer Muuse, reer Yarow, reer Buurow iyo reer Xumaan. Inta badan inta aragno wax dhaqan kuma jiro inta haddii laga reebo ninkan. Ninkan wuxuu leeyahay oo reer Bashiir la dhaho. Wuxuu leeyahay waxaa jirta sheeko la xiriirta reer Bashiir waxay riwaayadu leedahay odaygii Bashiir aabihiis oo la yiraahdo Maxaad Caabud Waaq oo ogaadeena sida meesha ku cad ayaa xajka aaday. Intuu xajka usii socday ayuu halkaasi naag ku guursaday waxayna u dhashay wiilkan Bashiir la yiraahdo. Wuxuu wiilkii baaqi ku noqday oo dhiig iyo dhaqaalba lala wadaagay Cali Mahad. Cali Mahadka waa kan Cali Mahad waa gorbakan walaashii la aroos oo umaleynaa kadibna cunugii waa farcamay oo wuxuu u kala baxay Bahabar Maxamed iyo Bahjaraay iyo Duugo iyo Madaasho. Koley dhalasho ahaan waa ajuuraan laakiin beesha jareer weyn ku dhex jira maanta. Saddex kunlen waxay u kala baxaan reer Ciise, Gasar iyo Baajimaal. Reer Ciise wuxuu u kala baxshay reer Dhoorow, Gareen ajuuraan waaye. Reer Bashiir oo isla yarka daaday oo aabihiis ogaadeenka ahaa. Reer Cashir, reer Shirkow, reer Muuse, Madoobe, reer Maxaad iyo Madaale iyo reer Cusmaan. Cabruurana wuxuu u kala baxay Soontooy iyo Guntane. Gasarta ayadana wuxuu u kala baxshay Gareen oo reer Naa'iba oo ajuuraan. Yabar oo ayagana Ooyageli iyo Yibidhaalo iyo loo kala yaqaano reer Gaagaabow iyo Gasarta caadiyeed. Laba gasar oo dhashay mida gasar kadib waxa uu maanay Kulmis iyo Yibidhaale iyo Gaagaabow mar kale iyo Asqar iyo reer Hiiraan iyo reer Buulow intaas u kala baxaan. Reer Buulow odayga Buulow wuxuu dhalay reer Soomow, reer Idaale iyo reer Kudaad iyo Baho qolo la yiraahdo. Asqarna wuxuu dhalay Cumar iyo Soomane. Abwaay iyo Cambuure iyo oo dhalay Cumarka. Soomanena wuxuu dhalay Cabdiyow, Caadiyow iyo Cabdi iyo Xanlow, Idaale iyo Liibaan. Cabdi wuxuu dhalay 7. Marka meeshaas waxaa kaga baxnay saddex kunle. Waxaan galaynaa kunle. Kunle wuxuu u kala baxaa reer Ciise, Gasar iyo Baajimaal. Baajimaala wuxuu kala baxaa Cabdimaajid, reer Ugaar iyo Kheyre iyo Gowayaal qole la yiraahdo. intaan ninkan la yiraahdo Feelirey
caafi dhalasho ahaan waa digil, wuxuu ku jiraa kunle qolada la yiraahdo oo ajuuraan, wuxuuna kasii darsan yahay beesha Jareerweyne ee reer Shabeelle. Laamey qolo la yiraahdo oo reer Colow ayagana waa duduble dhalasho ahaan. Laamey balaas Colow labadan lafood duduble isku yihiin, waxayna galaan Riinle. Riinle waxay kasii galaan reer Maanle, Maalimey, reer Maalimey Cabdimaajid, Cabdimaajidna waxay galaan Baajimaal. Okay, waa duduble dhalasho ahaan. kadibna waxaan galaynaa Shiidle. Shiidle wuxuu u kala baxshay Yibidhaale iyo Tolweyne. Yibidhaalaha zaad u farcamay oo Sagaalow iyo Waqbiyow iyo Garmagale loo baxshay. Waqbiyow wuxuu u kala baxaa Daacuuni, Koosaar, Mataan, Mareerey, Looboge, Dawle, Yuusuf iyo Buurfuule. Okay, Garmagalena asna wuxuu u kala baxshay Shoobe, reer Mahad, reer Axmed Cumar, Shariif Xaaji, Dheejiclo Barre, Cabdalle, Abtow, Guuleed iyo Afduub. Meesha waxaa uga baxnay qolihii ahaa magacood muxuu ahaa Shiidle. haddaad xiiseynayso inaan taxanahan sii wadno fadlan muuqaalka meel noo gaarsii like share comment and repost ku mahadsantahay daawashadaada.